الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn ilaahay baa mahad leh. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan leh inuu siiyey inuu ilaahay noo siyaadina waan ka codsanaa mushkiladaha jira in ilaahay naga badbaadiyo maariyaha guud aada wadooyinka madaxda iyo mas'uuliyiinta kale halkan joogta dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa sidaa la sheegay waxaan halkan u joognaa waa shirkii qorshaha sanadka ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka sanadkan insha Allah hadduu la yidhaahdo 2022 waxaan jeclahay noqdo markaas sanad aynu qorshayaal waxtar u leh aynu qorsheyno qarankana soo kordhino waxyaalaha sanadkan culayska la saaray waxaa ka mid ah in shaqooyinkan yeeshaan hal abuur aynu ku soo kordhino markaa wax shaqadii ka casriyeysan sidii hore shaqooyinkan wadnay shaqooyin cusub inaan ku soo kordhino adeeggan bulshada u qabayna sanadkan noqdo markaa adeeg ka sahlan isla markaana markaa hufan isla markaana ka dhaqso badan sidii hore insha Allah hadduu la yidhaahdo sanadkan sidaan u ballan qaadnay caasimadda insha Allah gelinka dambe iyo gelinka horeba way shaqayn doonaan waaxiyana adeegyada bixiya bishan labaad baan bilaabnay markaa koodeeda liisanada ay dadku gelinka dambe markaa iman karaan gaadiidka iyo hoostooda ka gelinka dambe la iman karo wasaaradda waaxiyada kala duwan markaa in gelinka dambe markaa shaqeeyaan si adeegii dadka subaxii mashquulka ah ee u baahan markaa in adeeg wasaaradda helaan ugu fududaato waxaa kaloo jira markaa adeegaasu gelinka dambe ah gobolada qaar buu ka shaqayn jiray oo ka socda iyagana gobolada kale aan ka jirina markaa waa laga hirgelinaya sanadkan waxyaalaha sanadkan culayska la saaray waxaa ka mid ah wacyigelin fara badan la sameeyo oo dhanka shilalka iyo nabadgelyada wadooyinka oo wacyigelinta markaa culays fara badan la saari doono si loogu dhiirigeliyo dadku inay markaa naftooda ilaaliyaan hantidooda ilaaliyaan sanadkan saa la socotaan idana waxaa culayska la saarayaa oo qorshayaasha ku jira in gaadiidkeena noqdaan qaar markaa ammaana oo nabdoon si taa loo gaadho markaa gaadhi kasta in la hubiyo markaa badqabkiisa gaadhi aan badqabkiisa la hubinin inaan waddada markaa marin ha noqdo mid markaa soo degay ama mid markaa sii jooga ha noqdo waxyaalaha sanadkan markaa milestone-ka abina noqonaysaa gaadhi kasta oo markaa waddada marayaana in darawalka wada oo liisan yeesho darawal bilaa liisana ama darawal aan liisan lahayn ama guriga ku soo ilaabay ama ka lumay oo gaadhi kaxaynaya markaa idina sanadkan ma jiri doonto sidoo kale speed governorkii in gawaadhida lagu wada xidho oo gaadhiga speedka xadidaya qalabkii xadidaya markaa xawaaraha in dhammaan gaadiidka markaa lagu wada xidho ayaa markaa sanadkan markaa idina qorshaysan iyadoo sidii hore wasaaraddu u kala horeysiisay gaadiidka dadka qaada hooyadaha kuwa jaadka kuwa culayska la saari doono waxaa kaloo markaa sanadkan la soo kordhinaya markaa gaadiidka waddooyinkeena maraya xamuulka sida rarka saayidka markaa inaanay qaadin rarka saayidka markaa laba shay baa imika intaan hore lagu eegi jiro waa aragtida oo la eegaya markaa gaadhiga dee kor u yar qaaday markaa rarkii ama markuu gaadhigu bakhaar ka soo qaadaya warqadiisa tanka ku qoran tankiisa la isku eego imika waxaan soo kordhinaa markaa miisaankii gaadhiga markaa miisaamiyey oo la dhigi doono markaa kantaroolada iyo baraha ay gaadhidu ka soo qaada raashinka magaalooyinka iyo marka laga soo galaba taasa markaa inoo saamixi doonto markaa gaadhiga xadka tan ka baxsan tankii loogu talagalay soo qaada in markaa la ganaaxo isla markaa halkaa lagaga dejiyo waxaasoo dhan waxay qayb ka qaadeen markaa nabadgelyada gaadiidka iyo ilaalinta markaa waddooyinkeena si guud waxaan u soconaa markaa in muwaadinka reer Somaliland ama dadka kale muwaadiniinta ahayn ee dalkeena dhex maraya ku dhex safraya iyagoo nabad qaba markay meesha u socdaan ay gaadhaan sidoo kale markaa inay iyagoo nabad qaban markaa ka soo noqdaan iyagii hantoodaba taa waxaa barbar socota saamika maariyo loo sharaxayay in waddooyinkii markaa la casriyeeyo qaar cusubna la dhiso isla sanadkan 22 isna wuxuu markaa taariikhda ku geliyaa oo sanad runtii taariikhda ku noqonaya in jidadkii waaweynaa ee socday markaa ay dhammaystirmaan
jidka Ceergaabo insha Allah dhamaystirmi doona madaxweynuhu furi doona waxaa dhamaystirmi doona markaa wadada Berbera corridor iyo bypasska wadooyin kale markaa inoo bilaabi doona oo imika ismakooda socdo ay ka mid tahay markaa wadada isku xidha Boorama ilaa loo yacdo wadadii kale iyadana assessmentkeedu uu socdo Oodweyne Burco Hargeysa wadooyinka kale markaa bulshada iyo dawladdu iska kaashato in qorshe markaa gudaha waxa weeye dhammaan la isku xidho markaa gobolada iyo degmooyinka dalka ee gaadiidku markaas si nabdoon u mari karaan inta badan dadkeenu waxay ku cawdaan marka la yiraahdo badqabka gaariga la ilaalinaya iyo gaariga xawaarihiisa hoos u dhiga dadka qaar bay yidhahdaan marka hore wadooyinka noo sameeya arda dalkeenu xoro waxaan kaga duwanay wadamada kale iyo wadamada jaarka gaar ahaan inaga dalkeenu maadaama dimuqraadi yahay dadku inay hadlaan ama social media ka hadlaan ama media ka hadlaan oo dalka qurayla madaxweynaha qofku la hadli karayo talada iyo tusaalaha u marin karayo marka media meesha doono iyo madaxda kale dawladda laakiin waxaan sheegaynaa waxyaalaha muhiimka dadku inay ogaadaan warbixinaha ka soo baxa markaa laamaha ammaanka iyo laamaha traffiga iyo wasaaradda dadku inay warbixinaha akhriyaan ma runtii aan jecelahay sanadkii imika dhammaaday waxaa dhacay markaa ilaa 6,000 iyo ka badan oo shil baa dhacay shilalkaas oo 2,600 ka mid ah waxay ka dhaceen markaa wadooyinkii casriga la sameeyay oo inta welibana gaar ahaan wadada Berbera corridor ilaa Gibile ilaa wadooyinka casriga la sameeyay ay markaa shabaka intii 80% ka mid ah ka dhaceen intaas waxay ku sheegaysaa markaa wadada marka la hagaajiyo hadaan darawalku aqoonti lahayn ama mas'uuliyadii lahayn ama aan sharciga ku dhaqmin oo aan xawaari loogu talagalay ku soconin beelka xidhanin calaamadii wadooyinka aan raacin waxay keenaysaa markaa inuu shil galo kadibna naftiisana ay ku dhimato meesha ama uu dhaawacmo kharash iyo dhaqaale culays fara badan markaa qoyskiisa iyo qaranka uu soo kordhiyo warbixinta soo kale soo saareen qolada dhakhtarka gaaraan dhakhtarka weyn Hargeysa sanadkii imika inaga tegay dadkii dhintay dhimashada la diiwaan geliyay 740 waxa u dhinteen markaa waxa sababay dhimashada shil taas markaa waxay sheegaysaa dhimashadii kale waxyaalaha kale sababeen iyo tii shilku sababeen inay almost isleegina 50% noqonayso naf kasta marba dhimanaysa maalinta dhimanaysa Ilaahay baa qoray laakiin adiga kugu xidhantay markaa taxadarkaaga iyo sidaad markaa u soconayso inaad ama adiga 180 kilomitir ku socdo la soo wariyay markaa lafahaaga iyo jirkaaga inaad iska fadhiyo ka muusa fadhiyo kale aad iska dhimato ama aad seexato waxaan u baahnaa markaa safety-geena wixii inaga mas'uuliyaddeena saaran inaanu markaa taxadar samayno inaanu ka ilaalino markaa lafteena wixii dayac ku keenaya marka maanta haddaynu soo noqono qorsheynan ilaa gelika dambeenu joogi doonaa qorshaha waxaan u baahanay markaa qorshe caqli gala oo macquul ah oo la jaan qaadaya markaa haynteena iyo wixii magaranaysa la qaban karayo muhiimaddu maaha markaa kharashka maaha marka haynta laga hadlayo haynta waxaa laga hadlayaa farsamada waxaa laga hadlayaa kartida iyo markaa iyo wixii imkaaniyadan haysana kale dhaqaalo waxyaalaha qaarna caqabad inaga noqoto laakiin waxyaalo badan oo caqabad dhaqaale aan ahayn ayadana qorshaha si fiican u qabano la gaari doonaa insha allahu tacaala waynu wada joognaa discussionka iyo doodahan waynu geli doonaa dhammaan kasoo qaybgalayaashana iyo agaasimawaxidadii la taliyaasha farsamana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saaxiibkay mawlid baan la kaftamaya maarayaha mawlid halka taagnaa buu yidhi maaraya dhalinyaraha baan oo ana hoostaan ka yar qoslay mogta saasi koley dee sucaadiya ayaanoo kale ka soo eegaya markay salxayaha iyo waxa arkaan waxay soo daawaxay marka maarayaha waa araan markhaati furaya oo nin dhalinyaraha inta yare salxayaana waxba ku qoslineed waa iska aqoontaa keentay isagu waa nin technical waxaa laga duwayay dee waa aqoontii wadooyinka iyo fiilkiisa u joogade marka aad iyo aad baan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.